tabcaan baanay codkii habaar bay kaga dhacay. daawud qoyska uu ka soo jeedo markan waxay xeer la dhigteen beelaha kale ama qoysaska kale ee ay isku haybta yihiin ama beesha gabooyo ka soo wada jeedaan xeerkaas ayaa noqon doona mid labadoodaba xakameeya maadaama uu arrin dhacdo aad u murugo badan uu daawud kala kulmay mid ka mid ah beelaha gabooye gabadh waa reer Jabuuti ma fahmaysaa xataa isku fahmi baan nahay aabaheed ba xataa diiday I don't know wuxuu diiday ma garanayo Soomaali badan ayaa aad u falanqaysay codkii fanaanka caanka ee Daawud Xanfar waxa ku dhacay iyo waxa ka sii noqday maadaama uu fanaanku ahaa fanaan aad u cod macaan barnaamijkii hore ayay Soomaalidu aad ugu falanqaysay fanaanka codkiisii iyo waxyaabaha ku dhacay markan waxa uu ka warramayaa codkiisii halaasiga ahaa iyo waxa ku dhacay iyo waxa haleelay fanaanka Daawud Xanfar ayaa sidoo kale ka hadlay dhacdo kaga dhacday magaalada Hargeysa intii uu imaka joogay dhacdadaas oo ku kaliftay ama noloshiisa gelisay mugdi waxaana uu sida uu barnaamijka ku xusay qaybteena labaad uu kaga hadlay inuu noloshiisa imaka go'aan ka qaatay dhacdada xanuunka kulul ee ku dhacday darteed 2 asbuuc ka hor wala uu kala tagay inta doontay ha hadda labadayada jilib waxaanu kala dhiganaynaa xeer inaan gabdho kala doorin waxa xaqiiq warkii hore imaka war soo dhaaf oo beelaha gabooyo dhexdoodii ay ka dhax bilaamatay imaka arrimaha haybsooca ay Soomaalida kale ku tilmaami jireen inaan sameeyo hees inuu kala kaxeeyo mooye cali waa soo dhamaaday sideeda banaanba noloshayda ma calaalin heesaha kan aad arkaysid aad dhegaysataan aan qaado anigu waa siyaasad ma jacayl qofkii jacayl ka dhiganaya dee isaga jirtaa ana ogina boqorkii codka ahay aniga kala hadlaya sababde adigu waxay u tilmaamaya ma aragtay waxaad ka xasuusan kartaa Daawud qisada heesta magalgacal intaan wali dhowraya bal qisada heesta maxaad ka xasuusan kartaa maadaama heesta adigu aad qaaday maxaad ka xasuusan kartaa qisada heesta magalgacal intaan wali dhowraya halbowlaga dhigay ay dhafato hadanka qalbigay dhex jiftay dayay indhuhu way ku dhaygagaan dayaha indhuhu way ku dhaygagaan ma jacayl dhaban dooldooliya ma kalgacal dhintaan weli dhowraya dhalanteed miyaan dhex jibaaxaya ya mise waaba dholol dhugasho iyo xasuus buu yiri wasalax laakiin heestaas dadku aad bay u jecel yihiin imika fanaaniinteenii hore iyo kuwii dhexe iyo lodkii dambaba waxa jira qofku markuu hees soo saaro heestii inay muddo jirto laakiin marka dambe ay noqoto expire oo ay dhacdo oo sidii loo hadalhayay ama sidii ay bulshadu aadka ugu dhageysanayeen aan u dhageysanin imika heestan magalgacal dhintaan wali dhowraya waa heesaha aan dhicin ee oo aan saaxada ka bixin dadkuna ay dhageysigeeda markasta ku soo ceeshadaan oo ay dhageystaan qiso waxay yeelataa hees sideedaba markii dalka lagu sameeyo heesta dalka lagu sameeyaa waa hees ka qiso badan heesaha qurbaha lagu sameeyo sababtoo ah ninka sameynaya ama taraag buu wadaa ama shirkad buu ka shaqeynaya warshada maxaa waqti ka sameeyaa horta weli gabari ma jeertay weli bahal ma la kulmay ma guday gudoodii meel duura ma maray yani qisooyinku fahmaysa heestan dhamays ee uu sameeyey Allahu naxariistay walaalka Abubakar imika waa la isku haystaa heesta laftigeeda maxaa keenay heesta horta in la isku qabsado ninka kale imika abwaanka heesta ku doodaya ee le anaa leh maxay tahay sababtan ku kaliftay inuu heesta uu isu siiyo isagu maadaama uu heesta walaalka lahaaba oo adigu baad walaalka heesta ka qaadatay oo heestaasi waxa sameeyey
waxaad sheegaysaa heesta la yidhaahdo dheehaaga quruxdiisa iyo xaadda dhabankaaga dhaldhalaalka guudkaaga iyo timaha sii dhaafay dhabarkaaga dhismihii iyo arooskaaga dhallinyarada ku ciyaartay bal dhegayso gaafkaaga waxa caawa kuu dhacaya baldhays waay walba kaala dheenle darwiish baa sameeyey abukar darwiish walaalkaa weeye haa waxaan maqlay laakiin nin kalaa isagu laakiin heesta sheegtay ismaaciil la yidhaahdo isagu ma sabeyn heesta ismaaciil haa markaa ismaaciil siduu heesta u sheegtay haddaanu lahayn wuu helay heestuu helay haa waay mubaarig octoobar aabihii ayaa heesta sameeyey xilli muu sameeyey isleeda 2014 ayuu sameeyey haa ismaaciilna goortan helay waa goorma wallaahi kolin maamlahaas helay heesta iyadoo duuban buu helay oo la qaadayo yaa qaadiyey aniga dee haye anaa u diray de heesta ismaaciil helaya de anaaba u diray de ismaaciil baa u dirtay haye isagaa youtube-ka soo geliyay markii dambe mogtahay oo kusoo qoray waay xuquuqda buu isagu sheegtay anaa sameeyey heesta adduunka balliqaa ka dhacday waxal baa jira iska daa dhoon wari kor uga bax waay ma kala hadashay ma ku tiri heesta adigu marihida walaalkay baa lahaa muxuu ku yidhi ninkii sameeyey horta markaa waa noolaa aad buu uga xanaaqay isagoo hadlaya way jirtaa oo ka hadlaya tviyada oo le heesta anigaa sameeyey waay ka waran dhanka laxamada haddii aynu eegno laxamo badan baa jira iyo heese badan oo aad laxan u samaysay laxamada horta dhib miyaa laga maraa laxamada marka laxanka heesta la samaynayo dhib intee leeg baa la maraa mise adiga kuguma dhibahaba laxamada marka aad samaynayso horta maxamedow waxa weeyaan sideedaba horta ninka qaaliga waa ninka mulaxamka ah ninka miraha sameeya ma aha ninka muusiga ka qadhowsiiyo tuntuma ma aha dee kaas waa ninka wax laxameeya muhiimaddu waa codka laxmka weeyaan haddaan waxba la laxamayn ama mareebay jirin muxuu ninka muusiga tumaya maxaa tumaya dee haddii lagu weydiiyo su-aal gaban oo ah waa maxay laxanku maxaad ku qeexi lahayd waxa lagu qeexi kara maaha wax la sameeyana maaha laxanku waa la qoran laakiin se wax la helo waa dareen qofka ku jira waa adigoo hadda ku dhaho dareenkaaga sidee dareenka ku yimaadaa noocee dareenku u egyahay si u egyahay ma cadaan ama buluug lama garan karo dee fahmaysaa marka laxanku waa wuxuu la socdaa hawada dabaysha dhacaysa ee noocay tahay aan la qiyaasi karin ayuu laxanku la socdaa iyo waa jawi qofku markaas uu helo weeyaan laxankan lagu sheegayaa waa jawi waa farxad horta sideedaba farxad buu ku yimaadaa haa mararka qaar baa waxaynu maqalnaa heesii hore heestaa laxankeeda waxay qaadatay in la sameeyo muddo dheer oo kale haa sidee muddo dheer u qaadansa markaa laxankaas mar baa la waayaa mid baan haddaran sanad iyo dheeraad hees haa dhowr heesood laxankeedi baad laahay laxmadii baan la'ayaa xilligoodii bay inimaan mararka qaar waa la waayaaba sideeda banaanba maqlisi qudaartii baa go'day waddanka qudaartii baa ka go'day iyo liintii iyo si fiican way go'daa mar baa la waayaa goormaa la helayaa waqti ku habboon ama jawi ku habboon markuu timaado markii ay timaado xilli isaga ku habboon jawi marka uu ku jiro lejanku ama fanaanka mulaxamka ahi xilliga uu jawi fiican ku jiro ayuu warqadda isor dhigaya ama garada buugga isor dhigaya wuu helayaa xilligeeday ku soo beeg wuxuu yidhi aaminay dadnimaha ka dooran lacag hana noqon dilaa dooqa lama gadee waa daciifnime inta gabar da'daada aan daawan jiray ee midaan dollar lacag iyo dahab iga jeclaataa doqon igu ahaatee waa aaminaha way waxaa jirta heesta aad samaysay ereyadeeda adigu aad leedahay laxanka adigu aad leedahay ee qisada dhibka badan ee adiga daawudow kugu dhacday ee maxaan baafintaadii u maray biliya dheeraad waa qisada murugada leh ee adiga kugu dhacday bal qisada iyo heestaa bal inayar dhex geli mawjada heestaa iyo qisadeedaba haka bixinin ballanteegaliyo
باقي لبدلنو هبيليني وعدكي عالشواب الوغي هو بحر بيوغ والخدو بدنك كادغو نو بيركاغا تيجي بيو حتى تدهيغا في سينا دريلين حدرو بلها erayada codkii baa erayada aad heesta iyo aad iga adiga digay. leh erayada heestaada sameeyey heestana sameeyey waay ha laxanka xitaa adaa leh ha maxay heestaas ku timi biliya dheeraad niyo xilli gabaraan isku fiicnayn bay ahayd waqtigaas anigu waxaan joogay Jabuuti ayay ahayd Jabuuti baan joogay balantii baa laga baxay markii laga baxay maxaa ii yaalana meesha waa ka baxayana wax walba jiray waan tirtiray gabadha maadiga ayaa jacaylka kaga baxay oo ku horreeyay inaad jacaylka kaga baxdo oo dhibka geystay mise ayadaa gabadhu jacaylka kaaga baxday midkee labadiina ku horreeyey horta inuu jacaylka ka baxo iyadaa ku horreysay bal amar ilaahay bal waxa dhacay feeri iyadii baa ku horreysay iyadii baana ka baxday hadda arrimahaas oo dhan maxamed waa iska daayayba meeshu waa halkee ahayd waa Jabuuti gabadha Jabuuti waa iska hesheen ha waay waa isbarateen waay xiriir baan dhex maray xoog waay halkee wax iska bedeleen ni oo waxay iska bedeleen xaqeeda waxay iska bedeleen garanaysaa gabadh waa reer Jabuuti ma fahmaysaa hadda isku fahmi baan nahay gabadhii markii reerkiinu kuu dooneen ee ay isdhaahdeen bal u doonaa daawud gabadha oo reerkoodii laga doonay reerkiinni maxay kala kulmeen gabadhii reerkoodii maxaa dhibaatadan dhacday ee lagala kulmay maxay noqotay aabaheed baa xataa diiday waay adoona wuxuu diiday ma garanayo isku family waatiin ha waay fahmaysaa marka arrintaasi wallaahi waa arrin aad u xasaasiyad aad way adkaatay xaaladaas cirkay u booday maxaa dhacay xataa labadii tolba xataa ku kala iska meel xun xaaladoodu kala gaadhayo fahmaysaa waay haddeer xataa laftigeeda waa kala maraysaa gabadhaa darteed qisadaa gabadhaa darteed waay waa doontay gabadhi miya adigu waa doontay gabadhii ha waay maxaad kala kulantay markaad doontay waan doono nabadoonadayda iyo faamigayga iyo cid kastaan u diray dee haye iyada laftigeedii reerka day raacday iyada laftigeedii oo intaasoo xiriir naga soo dhexaysay malaha 2 years 2 sano dhinaca reerkooda la safatay xaggii reerkooday aadayba haye markay reerkooda la safatay ma ismaqasheen marna may ma ku tiri maxaa dhacay dibba uma maqalba ma oran waxba maxaa dhacay baana oran si wuxuu jira baanan dhihin arrinta markaan eegay liin soo wici waayey laysoo garaaci waayey telefoonna waxaan ku iri lambar hal mar baa wacay hal mar halkii mar waa la qaban waayey xaaladda waa iska fahmay marka diba uma wacinba iyana ima soo garaacin marka already halka waxaa iiga cad sheekadu inay sheeko iska xiran ahayd xaaladuna lagu kala baxay marka daawud ma la odhan karaa si dhaba iyo dareen dhaba iyo jacayl dhaba ayaad u qabtay gabadha xoog bal jacaylkaa xilligaa ku hayey ee gabadhaa ku hayey maxaad ku qiyaasi lahayd dareenka xilligaa ku hayey caashaq maxaad ku qiyaasi lahayd niyow ma qiyaasi karo waayo qiyaasba ma lahayn haddii gaari laga buuxiyo xataa ud gabaaridii hore sabaaxa iyo loorijiliji jacaylkaad gabadha u qabtay qiyaas mu lahayn xisaa xad ma lahayn xoog baanu jeclaa iyada laftigeedu way jeclayd laakiinse dee jacayl ma oran karo iyada teeda jacayl maba dhihi kara laakiinse
malaha waa laga xoog badiyey xagga familygooda. marka ismahan baa la dhahaa magaceedaa doondoonaysaa sooma kor uga bax maxaa kaloo weydiinaysaa jabuuti waqtigaa miya iyadu kula joogtay may iyadu waxay ku sugnayd deegaan kale ha maraykan bay joogtay ha waan garta sidee isku bartay war hataa hadda dhaweyd habeeno dhaweyd xataa laftigeeda goorta la doonayo ma taqaanaa goorta la doonayo oo xilligaas ay dhigi iska barashadii way ma garanaysa laakiin si goorta la doonayo ma garanaysaa waa 2025 maxaa lagala kulmay marka de waxaa lagala kulmay inaan la gabadha la bixin karin gabadhan waa fahmi waaye ma jinba yacni innaga iyo reer jabuutiga isku dhaqan ma nahin garanaysa xeer qoys baa jira waxyaale inaan inagu fahmi karin baa jira heestan markaa ma waxaad u samaysay markii xidhiidhkii iyo jacaylkii aad lahaydeen burburay xilligaas waa gabadha markaas baranaynay ka bixinin ballanteengale iyo baaqi labadeena waa degniin sii dhacaysay bay ahayd dardaar weli bad u sii sameynaysay idinkoo wada socda sii dardaaran bay heestu sii ahayd sii dhacaysay habeenayni yacni waa bilowga jacaylkii bilowga weeyaan wuxuu yidhi maxaan baafintaadii u maray bil iyo dheeraade ha ka bixinin ballanteengale iyo baaqi labadeena habeenaynin wacadkii ogow caashaq waa belo waa baxar dhib iyo hawl hadduu bedanka kaa galo yaa beerkaaga uu dego markaa heestaa waxaad u samaysay dardaaran oo kale ya waqtigaa dardaaran Haa. baad usii samaysay ha way imika jacaylkii waa kaasoo halkaa waxaa soo kala gashay caqabad baa timi dhankii faamiliyada ah oo welibana faamiligeeda ka timi waa bilow waxaad garanaysaa meesha uu ku leedahay ha ka bixinin ballanteengale baaqi labadeena habeenaynin wacadkii ogow caashaq waa belo waa baxar dhib iyo hawl hadduu bedanka kaa galo yaa beerkaaga uu dego yaa bi'i waaye ila qabo waa ku jirta mogtahay yacni waa bilowga sheekadii bilowga weeyaan imika hadda maxaa la marayaa hadda xidhiidhkii jacaylkii gaabis baa ku yimi war hadda bishan toddobaad aynu ku jirno hadda toddobaadatan 2 asbuuc ka hor waa lagu kala tegey intaad doontay haa hadda labadayada jilib waxaanu kala dhiganaynaa xeer inaanan gabdho kala doonin waa xaqiiq sababna dee adigu dee jilibkaaga oo gabar ku diiday maxaad odhan lahayd waa xeer uun sababtaa noqon mayso dee Si fiican. xeer bay noqonaysaa si fiican daawudkan imakay hor fadhiyaa daawudow ma waxaa tahay adigu dhaawac baa tahay oo waxaad u tahay caashiq ayaad dhaawac u tahay hadda waa soo ka hadda waa sii inaan baabi'iyo ayaan ku jiraa sheeko iyo sheeka dumar iyo waa leysta kiimkii igu dambeeyey bay ahayd moogta umalayn ma jacayl dambe inuu igu dhacayo saan u malaynayo dee sababtoo ah si dhabaad u jeclaatay miyaa xoog aad baan u jeclaa hay xasuusin dee iga daa isla jacaylka Iga daa hay inagoo xasuusin isla jacaylka inagoo ku jirna bal meeris hees ah oo jacayl ah ku qiyaas waqtiga xaaladdan aad ku jirto ma qiyaasi karayo xaaladda aan ku qiyaasaa ama hees aan ku qiyaaso hadda maxamedow maba garan karoba inaan sameeyo hees inugu kala kaxeeya mooye calaacali waa soo dhammaaday sideeda bannaanba noloshayda ma calaacalin heesaha kan aad arkaysid aad dhegaysataan aan qaado anigu waa siyaasad maaha jacayl qofkii jacayl ka dhiganaya dee isagay jirtaa laakiin heesahayganu sideedaba waa siyaasad laakiin imika waqtiga calaacalkaad gasha may ma xalaacalayo ma jirto haba ka yaabin
nolosha idaba isma dhiibine iminkana isma dhiibisid isma dhiisaasu dhiibaa de qof waalanoo doqona ama dacaaqa isdhiibade waana isdhiibeyn go-aankaad gaadhaysaa muxuu yihi go-aanka gaarayo sidaa aan ahaanayo intuu mid ilaahay khayr le ii keenayo ama iyada ka fiican ama reerkii dhalay dib isugu noqonayaan. hees baa jirta mar aad tijaabo samaynaysay dhanka kamanka oo aad waday tijaabo kamaneed oo aad tumaysay aad qaaday baa jirto aad iyo aad u cod macaan oo markaad qaadayso aad moodid inaad kaga cod macaan tahay baa fanaankii heesta lahaa. heesta nimcaan hilaac qaado ee loogadii qalbiga. horta heesta waxa qaaday waa ardagaygii weeyaan aniga nimcaan hilaac haasa dhowr ah baan u dhiibay laakiinse inkastay heesuhu dariiqiisi uu mariyey heesa badan ayaan u dhiibay. heesu cali mooga lahaa abwan kaarshe xasan kaarshe reer ingiriiska iyo cali moogo reer maraykanka baa isaha ii kala dhiibay anna waxaan u dhiibay nimcaan. qofka anuu heestaan isugu talagalo baan qof u dhiibaa ilaahay amarkii. nimcaan ma waxaad heesaha u siisay naftaada waxaad la jeceshahay walaalka la jeclow saasaad ula jeclaatay heesahan badan ee aad u dhiibtay aad ii sheegaysay marka heestan anigu codeeyo aniga dee isma oran waa kaa hebel waa kaa cod fiican yahay ama waa laga cod fiican ismalihii barraba laakiinse waxaan jeclaadaa inuu hebel ku soo baxayo waa hubeeyaa. heestaa inoo qaad bal loogadii qalbiga. lafta dhabarka haysayo jidhkiyo gebilexaadkiida adiga ku luuqmoose weyn waa xiranahayaan waayada tanba waa lay haystaa ilbay igaga dhacday. maxay heesaha laftigoodaba ilbay igaga dhacday isha soo ma garanmaysid ilbay igaga dhacday laakiin insha allah waa ficlaan doonaa markaa dhankii codka ilkaaga dhaca. soomaalidu imika waxay tidhaahdaa haddii fanka soomaalidu uu qof qiimayn lahaa ama qof maamuusi lahaa waxa uu noqon lahaa daawud xanfar. dad badan ayaa fikirkaasi qaba aragtidaasi qaba ku dooda marka adigu ma qabtaa haddii in uun fanka uu cid maamuusi lahaa adigaagana hor fadhiya ayuu ku maamuusi lahaa? waa run ma aaminsantahay adugu? waa run waxa la yidhi markii lagu sheegana waa laysa sheelaa markii lagu sheelana waa laysa sheegaa markii lagu sheegana waa laysa sheelaa saasay ahayd sooma. anaa ogina boqorkii codka ahay anigay kala hadlaya sabab dheh adigu waxay ugu tilmaamaya ma aragtay inkastoo dhallinyartu igu yidhaahdaan daawud waa cod macaan tahay aad baad u cod fiican tahay codkaagu waa cod hallaasi ah caadi maaha waan ogahay inaa cod fiicnahay laakiin xaggee mariya weeyaan yaan u heesaa weeyaan codkaygii ka fiican yaan ugu heesaa. soomaali ugu heesay qaarkood 100% baan siiyey ma wada siin codkaagii waad kala reebatay waa kala haray. haddii lagu odhan lahaa barkontakaa nagala hadhay mawjada ugu dambeysay noogu soo daa hadda insha allah markaan bogsado insha allah baan kontonka kalena siinayaa faasadahay. marka codadka waa layska cawriyaa fanka waa layska cawriyaa wax kasta waa layska ileeyaa. fanaaniinta yaad u jeclayd? maxamed salebaan tubec legend of the legend. mid doore heesihiisii codkaagii macaanaa saaxiibka cali inoogu dhame. anigana waa lay qabsanayaa oo bulshada ay qabsanaysaa haddii aad codka kusoo xidho weydo. abka luqunta heesaha xanaanka iyo laafya tallaabadan habsaniyo hasa aweekeeda malyuunigo la siistaan nin hoodiyo nasiibla addurgela naftiisa anay hufiiq u qaybte sorjoogsigeeda malyoonibo la siistaan aniyo nabaday codkayga saasuu noqday. tirada
dumarkan aad reerahooda ama faamiliyadooda ka doontay ee laguu diiday ee aad dhibaatada kala kulantay diidmadoodana tiradooda horta waa imsa Daawud? labo waa tan hadda kuu sheegay iyo gabar kale oo hartiya lama si sheeg oo kale laakiin oo Puntland joogta labadaas laguu diiday. أنا waxaan garan waayay waxa meesha aan la ahay inaad orma cid bayga qurux badan adaa u jeeda hadda war ilaahay barkiisu midba sababta lagu diiday garan weyday? I don't know maxaa dareentay markii maxaa qabiilka maxaa garanaysa waa fahmi lahaa way markii laba dumar ah oo isku xigay isku waqtina lagu diiday maxaa dareentay? hadda laftigeeda maxaa waska xanuus ay mooyee حتى صاحب horta saaxiiba ma weligiiba ma yeelane intii aanu isniqinayna waan kala go'nay hadda saacad ama kula hadlaya cid aanu isnaqanaaba ma jirto sababde inaan dad wada aragtay aanu suuqan iska maraa kafee meelaha maqaayadahan taga cidna lama hadlo laakiin marka ma qalbigaaga wax ka dhex guuxayaan? xoog waliba xoog baa laga dhex guuxay dab baa shidan dab fahmaysaa laakiinse way dhammaan doontaa waana hagaagi doonaa anigu haddana waa hagaagsanay waxba igama maqnaa fahmaysaa laakiinse waan ficnaan doonaa sidaan waan kasii ficnaan doonaa insha allah aadna waan ku salaamayaa maxaa kaloo weydiinaysaa bay soo maa xaalad aad iyo aad waa kaa qaada saaxiib waqtigaa waan ku mahadcelinaya aad iyo aad mahadsanid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Daawud Xanfar. waraysigan oo ahaa mid dhinacyo badan taabanaya ama duduc badan xambaarsan maadaama uu Daawud ka mid yahay dadka ay Soomaalidu jeceshahay fankiisa. waraysiga waxaa idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Ducaala. waxaanad kala socon doontaan bogagga kala duwan ee aan ku leenahay mareegaha internetka. tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.